gudoomiyaha bangiga dhexe ee Somaliland Maxamed Cabdi Doobaale ayaa maanta shaaciyay inay meel fiican u marayso dadaaladii loogu jiray sarif bararka gudoomiyaha warbaahinta kala duwan ee dalka Somaliland ugu waramayay xafiiskiisa ayaa waxa gudoomiyaha hadaladiisi kamid ahaa waxaan ogeysiinaynaa mujtamaca ama dadweynaha reer Somaliland iyo inta ku taxalluqda sarifkaba in bangigu shalayto uu bilaabay sarif oo suuqa gelinayo oo muddaana laga sugayay ballanqaadyo horena aanu sameynay aniyo wasiirka maaliyaddu maantana aanu shalaytana aanu bilownay maantana aanu ku xijinay wadi doonana insha Allah maalin walba ilaa inta hoos ka dhacayo oo soconayo waan hawshaas waanu ku tala jirnaa in badanna waanu u soo xamxaamaynay hase yeeshee hawshu waxay bilaabantay shalayto maantana waanu ku xijinay idinku soo aragteen taas markaa waanu sii wadaynaa dadkana waxaan ugu sii bishaareynaa inaanay lacagtooda aanay daadinin ay dadka iska baayacaan oo dadkan maartay warka inta u sheegaan iska qaadanaya ay wadaan annaguna waanu wadaynaa insha Allah ilaa intuu Ilaahay ka qadaro waanu wadaynaa awoodeeda waanu dadaalaynaa shacbigana waan u maqanahay markasta heegan baan u nahay wixii kale markaa ka soo baxa na weyn u wada joognaa insha Allah waynu wadaynaa Umar Ali Ducaale Umar Shabash telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Hargeysa.